السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسونا هذا ولا ليال جنكيني واحد بكريبتو وولكن محمد شامع وحدوني مانتا إن شاء الله إنه لما يصيرنا تحنيهني أفريتو من كوين يتضبط مشروع ay ku dulisnaayeen sida xalqadii hore aan ku sheegay waxa jira 136 projects oo kala duwan taasoo 22,000 oo coin ay ku dulisan yihiin oo aan isleeyahay insha Allah taala waa kuwa faa'iidada ugu badan laga sameyn karo qaybtana daawanaysaana waa qayb saddexaad oo maanta insha Allah aynu dhameystiraynaa saddexdii jusi aan ugu talagalnay 14 coin iyo 7 mashruuc ay wataan hadaynan daawan xalqadii hore part 1kii iyo part 2gii waxaan ugu talin lahaa soo daawada laakiin intayna bilaabin waxaan naga codsan lahaa hadad channelkaad ku cusub tahay oo aad jeceshahay inaad cryptocurrency aad fahantid oo coinka maartay ugu faa'iidada badan ee laga sameyn karo inaad ogaatid mar walba oo update-yada aad la socotid kala duwan subscribe iyo like channelka noo saar adigoo mahadsan ta kale challenge baa jira insha Allah taala account TikTok ayaan sameeyay android taana waxaan naga codsan lahaa soo follow gareeya insha Allah taala challenge-gu waxa weeye TikTok inaan ku gaadhno 2,000 oo followers hadaynu gaadhona waxaan doonayaa inaan sameeyo giveaway oo halkan channelka YouTube-ka aan doonayaa insha Allah si live ah inaan u soo galo oo qofkii ku guuleystayna halka maartay aan ka siiyo jaayisadiisa insha Allah taala hadda jeceshahay in si gaar ah aad la soo xiriididna waxaad ka helaysaa description box-ka cinwaankayga Telegram-ka ah halkaan wada la soo xiriiri kartaa waxba hada kayaan ugu badin aynu bilowna insha Allah taala qaybta shanaad ee mashaariicda kala duwan aan doonayno maanta inuu ka hadalno waxa weeye web3 web3ga waxa weeye internetka cusub ee la doonayo in loo guuro video ma ka sameeyay sharaxaya web3ga wuxuu yahay waxaan rajaynayaa inaad soo daawataan si aad u fahantaan waxaan ka hadlayo insha Allah taala laanu ma doonayo videoga inuu nagu bato sidaa daraadeed waxaan doonayaa markiiba inaynu dul istaagno coinka ugu muhiimsan haday tahay w3ga amba web3ga ee loo guuri doono coinkana waxa ugu horeeya hadduu ku bilaabo Cadena buurankii dhawaa waxay gaadhay $24 maantana waxay marasaa $2 wax ku dhow hadaynu eegno total supply-geeda iyo max supply-geedu waxa weeye 1 billion oo way wacan tahay waana arrin wacan inay caddeeyeen labadaba oo totalkeedu iyo max supply-geedu uu yahay 1 billion marka waa coin aad u wanaagsan dhowr majaalna way ka shaqeysaa arinta kale ee Cadena aad maaragtay ay ugu wacan tahay waxa weeye xawaaladaha waxay fulin karaan halkii second amba halkii ilbiriqsi 400 oo xawaaladood taasina waa arrin aad u cajiiba hadday tahay masaladaha maartay ku soo kordhaya caalamka blockchain-ka iyo qaabka coinku lacagaha ay u xawilaan coinka kale aynu hayno maanta waxa weeye AR amba Area Wave waa coin aad u wanaagsan waxaanay ku wacan tahay qaybta storage-ka qofku mustaqbalka dhow marka loo guuro W3ga amba internetka cusub wuxuu qofku u baahanayaa amba maartay muassasaduhu amba businessyadu meel ay ku kaydin karaan xogtooda dhan oo storage weyn siisa sida imaka waxa uu caana majaalka Amazon Cloud Storage doorkii hore ee aan sameeyay top 5 coins kala waan kaga hadlay coinkan sida halkan aan ku aragnay website-kooda waxay ku leeyihiin store data permanently marka haddii datada mar quraata la geliyo blockchain-kooda ee cloud service-ka ay ku siinayaan marka halka waxay ugu jiraysaa forever blockchain-ka oo cidina ma bedeli karto marka waa coin aad u wanaagsan oo mustaqbal leh coinkan oo la yiraahdo ENS oo waxaanu ka dhigan yahay Ethereum Name Services hadaynu website-kooda eegno qaab yar oo sahlan ay u sharxayaan wax inoo sheegayaan inuu yahay coinkani mid sahlaya oo blockchain technology-goodu mid sahlaya decentralized naming for wallets websites and more marka W3ga loo guuro mustaqbalka waxa muhiim ahaanaysa inay dadku maartay controlka ayagu horta yeeshaan haday tahay website-kooda businessyadooda lacagaha ka soo galaya waxa soo dhan cid la qaybsanaysa ma jirto sida imaka W2ga ka dhacaysa amba internetka caadiga ah isticmaalno haday tahay maartay Google-ka haday tahay YouTube-ka markuu qofku maartay wax soo dhigo amba qofku content uu sameeyo waxa la qaybsada amba la shaarika qolooyinka amba jihadaha kale la maartay website-yada oo halka ayagu profit-koodii amba waxay heli lahaayeen wax ka cuna marka ENS waxay sahlaysaa amaliyada inuu qofku hadduu website uu iibsanayo uu mar quraata iibsado uu forever website-ka u lahaado wallet hadduu samaysanayo inuu wallet-ka u samayso uu forever asna u lahaado iyo waxyaabo fara badan oo kale marka mar walba laga hadlayo maartay W3ga amba internetka cusub ENS waa mashruuc amba coin aad u wanaagsan waxaanay dee la socota Ethereum-ka oo taana maartay wax laga hadla maaha maadaama Ethereum-ku uu yahay second largest coin waana coin aad u wanaagsan oo mustaqbal leh asna mashaariicda qaybta toddobaad ee ugu dambaysa aan insha Allah aan doonayo ka hadla maanta waxa weeye mashaariicda blockchain-ka ciyaaraha loogu talagalay hadaynu eegno coinaka kuwa ugu muhiimsan waxa kamida shells dan website-kooda eegno
waxay ku leeyihiin waxa weeye the leading blockchain fintech providing sports and entertainment ka marka laga hadlayo blockchainada amba coinaka ku saabsan ciyaaraha waxa ugu muhiimsan ee laga hadla waxa weeye had iyo jeer shells ayaan dhaweedna maqaalka weynii soo dhigaya waxay la galeen deal Barcelona lacagta dealka ay kula galeen ay ahayd mid gaaraysa $100 milyan majaalka sportskuna waa majaal aad iyo aad u weyn oo lacag fara badan maartay laga sameey karo haday ku najaxdo shells inay controlsho amba haymanada maartay ay la wareegto majaalka waxaan u malaynayaa waa coin mustaqbalka amba lacagteedu ay qaali noqonayso halkan haddaynu eegno hoosana inta team ay partnership ay la yeesheen Barcelona kamida iyo dhowr naadi oo Turkiya maalin walbana dealal ay la kala galayaan fariiqyo kala duwan iyo dooriyaal maartay kala duwan oo maanta waxay maraysaa 0.21 cent ugu yaraan coinkan wuxuu gaari karaa ilaa $5 $4 mustaqbalka dhow insha Allah taala